maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka wasiiro xildhibaano taliyaasha ciidanka booliska iyo badda siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xubno kale ayaa ka qayb galay salaada janaasada meydka allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax oo dhowaan ku geeriyooday dalka turkiga salaada janaasada kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka amniga soomaaliya iyo xubno ka mid a xildhibaanada golaha shacabka waxayna kaga tacsiiyeen qoyskii allaha u naxariistee ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax iyagoona ka sheekeeyay taariikhda lama ilaawaanka ee dalka u soo qabtay u naxariistay wasaarihii hore xasan abshir faarax sidoo kale waxaan si gooni ugu tacsiinaynaa carruurtii iyo qoyskii uu ku tegey waxaan leenahay xasan abshir wuxuu ku tegey taariikh wasaarihii hore ilaaha u naxariisto qabrigiisa waasiclaa ugu dhigo jannada firdawsna ilaah ka waraabsho ummadda Soomaaliya way ka dhageysan tahay taariikhduu soo maray weerar tooro badan oo soo maray oo shabeellada dhexe ah iyo gobolka Banaadir ra'iisul wasaarna waa noqday xildhibaanna waa ahaa taariikhdiisa halkan lagu soo koobi karo marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliya samri meelaha ka siiyo gaar ahaan qoysaskii iyo eheladu ka gooriyooday waxaan leenahay inna ilaahi raajicuun ilaahu naxariisto maastiin dadka Soomaaliyeed khaasatan eheladiisii iyo ilmihiisii iyo xaaskiisii anigu waxa calaamad gaar ah aan leeyahay waxay u ahayd xasan abshir allah u naxariisto shirkii ummadda Soomaaliyeed la isugu keenay carta wuxuu ahaa dadkii wax ka aflixiyay dawladda maanta la harsanayo hooskeeda wuxuu ahaa dadkii dhidibada u soo taagay waxaan leenahay ajar iyo xasanaad allah ka siiyo wixii uu Soomaalidu u qabtay waxaan leenahay dadku waa dhimanayaan xasan ma dhimana wuu dhuuntay wixii uu ka tagay baarada yaala la raajicuun waxaan halkan tacsiyo diraynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaa maanta naga baxay nin qaali ah oo udub dhaxaad u ahaa dawladda Soomaaliya ilaa maalinka xornimada la qaatay ilaa maanta aan oran karo soo dhalinyaro ciidankii qarankii xoogga weynaa ka mid ahaa saraakiishii ka soo qayb qaadatay maxaa la yiraahdaa dhisidda ciidanka ka gaaray korneyl ciidan hogaamin dagaalka 77 dadkii harar korkeeda tagay ahaa waliba dhaawac ka soo gaaray allaha u naxariisto ra'iisul wasaare ambassador maayer aabihii maxaa la yiraahdaa dawladnimada Soomaaliyeed ee waqtigan dheer u jirtay aabayaashadii ka mid ah mudan xasan abshir faarax taqaanay noogu weyn oo uu naga tagay haliyay geesi wadani Soomaaliyeed oo dalka u soo halgamay shaqo badan u soo qabtay ilaahay ha u naxariisto annagana sabar iyo iimaan naga siiyo waxaan halkan tacsi aan rabnaa inaan ka gudbino haliyay weynaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed ku lahaa xasan abshir oo halkan lagu soo koobi kareen maanta airportkan taagano janaasadii baanu ka soo qayb galnay waxaana leenahay runtii ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo cabdulaahi maxamed sheekh doo warbaahinta SBC muqdisho